waayahay soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rabaa inaan idinla wadaago maxay tahay xerada General Gordon oo ahaa nin generaal Soomaaliyeed waqtiganna ama warqadan la soo saaray lagu sheegaya in magacii generaalkaas laga bedelay laguna bedelay magaca generaal kale oo isna markaas imaaraadka ah maxay tahay waqtigan warqadan culus ee uu madaxweynaha soo saaray maxayse inta badan falceliyaashu ay ka falcelinayaan ay qorayaan waxaana sidoo kale jirtaa in markaas generaalka halkaas loogu magac daray uu qayb weyn isagana ka soo qaatay xerada General Gordon iyadoo markaas dhawaan ciidamadii halkaas lagu duqay uu ku jiray xogta si aan rabaa halka kugula wadaago si shirkare muuqaalka meel dhanal gaarsiin qaybta hoose faalada commentiga ayaad inagula wadaagi kartaan waay soo dhawaada saaxiibayaal bogan haddii ay tahay markii ugu horeysay ee uu ku soo gaaro fadlan ka mid noqo oo nagu soo biir wareegto ay markaasi soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya ayaana lagu sheegay in xerada General Gordon markaasi magacii hore laga bedelay laguna bedelay Maxamuud Mubaarak Al-Mansouri oo ah generaal markaasi si weyn markaasi kaalin la ugu qaatay isagana xeradaasi iyo waliba soo kale ciidamada halkaasi joogay tababarkooda iyo waliba sidoo kale dagaalka ka dhanka ee kooxda aas iyada oo waqtigan la joogay ay warqadiisu ay soo baxday qoraalka warqada ee lagu qoray ayaana u qornaa sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud marka uu arkay qodobada 87 9aad iyo waliba sidoo kale waa dastuurka ku meel gaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay in ay markaasi ay ku haboon tahay in loogu magac daro shuhadada waa markaasi shahiidka col Maxamed Mubaarak Al-Mansouri oo markaasi ah generaal ee ka soo jeeda ama markaasi dhinacaas iyo waliba imaaraadka ee ka soo jeeda waxa uu sidoo kale madaxweynaha uu soo saaray xeerkan waa qodobka koobaad ee markaasi warqadan laga bilaabo marka uu madaxweynaha saxiixa xeerka waxa xerada hore ee markaasi ex General Gordon markaasi loogu magac daray laguna bedelay col Maxamed Mubaarak Al-Mansouri qodobka labaad xeerka waxa uu dhaqan gali doona ayaa lagu yiri qodobka labaad xeerkan waxa uu dhaqan gali doona ayaa lagu yiri wareegtadan markuu uu madaxweynaha uu saxiixo ama dhaqan galiyo taasi oo si sax ah ama magaca saxda ah xerada General waa ex General Gordon ee hore loo yaqiinay ay hadda ka dambeedo ay noqon doonto col Maxamuud Al-Mubaarak waa markaasi Maxamuud Mubaarak Al-Mansouri oo ah generaal markaasi dhanka iyo waliba soo kale imaaraadska ee ka soo jeeda talaabadan ee uu markaasi madaxweynaha magac ugu bedelay ayaa lagu tilmaamay ama dadka inta badan ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ay ku tilmaameen in waqtigan la joogay aysan mudnayn ama aysan wanaagsaneyn in generaal Soomaali ah oo magaciisa iyo mansabkiisa lagu xusay xero ciidan oo kumanaan ciidan sanad kasta ay ka soo baxdo waqtigan la joogay in lagu bedelo misna loo qaado generaal kale ajnabi ka ah dalka ee ka soo jeeda si kasto ay markaasi qayb weyn ugu qaateen ay dhigooda u horeen haddana se marka la joogo Soomaaliya ay qurux badnaan lahayd waa sidaas dadka inta badan ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo waliba soo kale xaaladda siyaasadda dalku ay inta badan ku dhaliilayaan madaxweynaha in waqtigan la joogay uusan magaca generaalka uusan ka bedeli lahayn oo loo sii deyn lahaa maadaama nin Soomaali ah dalkana dhigiisa iyo dhacankiisa naftiisa u soo horay oo waqtigan la joogay isagoo qarankiisa u dagaalamaya uu ku shahiiday waxaana sidoo kale inta badan dadka ee falanqeeya arrimahan iyo waliba sidoo kale siyaasadda Soomaaliya ee maanta cakiran ku tilmaameen in ay tahay talaabo xun oo aanan laga filanin dowladda Soomaaliya in maanta ay mar kale u qaadi karto taasi oona waqtigan la joogay munaasabkeeda ama mudnaanteeda aysan lahayn iyada oo dalka uu ku jiro dagaal iyo waliba sidoo kale qaab doorashooyin lagu qaban lahaaba taasi oona isjiijidkeedu aad u fara badan yahay waxaana sidoo kale ay tilmaameen in haddii dowladdu sidan ay ku sii socoto ay markaasi arrimo kale sidan ka weyn ay ku dhici karto maadaama hadda ay u muuqato in xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya marka la joogo mucaaradka iyo muxaafadkaba ay si weyn isku hayaan Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay tan dib u doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa si xoogaysanaya khilaafka kala dhaxeeya siyaasiyiinta maadaama markiis hore isagu dib joog uu ka ahaa siyaasadda Soomaaliya sidan oo kale xaalad u xumid laakiin markuu yimaaday saaxiibadiisa safka hore kula jiray waqtigii uu banaanka joogay ayaa u muuqata in dhaliilo kala duwan ay u jeedinayaan
ayna ku tilmaamayaan in uu markaasi sharciga si weyn u baalmarayo ama markaasi madaxweynaha uusan u hirgelinaynin qorshaha ee siyaasadda ee Soomaaliya iyadoona markaasi sidoo kale ayna ku sheegeen in dadka la taliyaasha oo misna markaasi arrimaha Soomaaliya ama masiirka Soomaaliya kala taliyaba ay yihiin dad dana gaar wata oo aanan markaasi ku hageynin qorshaha dalka iyo horumarkiisa iyo waliba sidoo kale fursadaha kale ee jiilku ay dib u heli lahaayeen taasi oona hadda mucaaradku inta badan arkayno qoraalada ay soo saareen ay ku dhaliilayaan madaxweynaha iyo waliba sidoo kale dadka inta badan ka faalooda arrimaha Soomaaliya adigu se maxay kula tahay in generaal Soomaali ah muddana halkaasi ee ka dagaalami jiray dhiigiisii naftiisa hore loogu magac daray kadibna maanta magaciisa meesha laga tirtiro lagu soo bedelo generaal kale ee ka tirsan Imaaraatiska oo Soomaaliya isna qayb ka qaatay dagaaladeeda maxayse kula tahay aragtida qaybta hoose faallada commentiga ayaad nagu wada kartaa si share garay muuqaal meel dheer nala gaarsiin qaybta hoose faallada commentiga nagu wada mahadsanidin